Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawada kusoo dhawow Seto Academy magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur maanta waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay yiraahdo non-inverting amplifier non-inverting amplifier wuxuu ka soo horjeedaa inverting amplifier oo aan horay uga soo hadalnay haddii aadan daawan inverting amplifier-na halkan ayaan soo dhigaynaa ee ka daawo non-inverting amplifier waxaa la dhahaa markii operational amplifier-kii ahaay 741 bin 3giisa lagu xiro source oo v-in ah markii lagu xiro laguna sii xiro ground oo ah 0 bin 2na lagu xiro input resistance iyo feedback resistance haddaba waxaa la raadinayaa xiriirka ka dhexeeya input voltage-kan iyo output voltage-kan xiriirka ka dhexeeya ayaan raadinaynaa waxaan tegaynaa nodekaas ayaan tegaynaa v1 aan u bixinaynaa sidoo kale halkan waa v2 marka v2 iyo v-in waa same sidoo kale waxay la sii mid tahay v1 macnaha v1 v2 labadaas waa isku mid waxayna la mid yihiin v-in marka nodekan halkan v1ka ah v-in bay noqon kartaa halkanna waxaa kuu saaran v output haddaba waxaad dhahaysaa v-in maxay la mid macnaha i1 maxay la mid tahay KCL aa ku apply garaynaysaa KCL waa ku apply garaynaysaa i1 waxay la mid tahay i2 i1 marka maxay la mid noqonaysaa waxay la mid noqonaysaa 0 oo halkan ah 0 oo laga jaray v1 ama v-in 0 minus v-in loo qaybshay r-in r input waxay la mid tahay i2na waxay la mid tahay v1 ama v-in v input oo laga jaray v output oo loo qaybshay rf intaasaa haystaa haddaba waxaa rabtaa inaad soo heshid v output inaad soo heshid meeshan waxay kula mid tahay r input oo lagu dhiftay v input minus v0 cross multiplication aa isku dhiftay oo lamida rf minus taasna ka hormar minus v-in minus v-in minus v input oo lagu dhiftay rf iyo cross multiplication aa isku dhiftay kadib waxaa dhahaysaa rftan qaybi r-intan qaybi v-in minus v0 waxay la mid tahay minus rf r input v-in v inputkan wareeji v output oo minus ah waxay la mid tahay rf r input v minus v input oo minus waa tana meel walba haddaa minus u qaybisid way isla wada baxbaxayaan kadib v output waxay la mid noqonaysaa haddii aad ka saartid common oo calaamadan saada iskugu qaldin minustan way la baxday kadib v output waxay la mid noqonaysaa haddii aad meeshan ka saartid v-in waxay noqonaysaa 1 plus rf loo qaybshay r input v input ayay noqonaysaa marka a oo ah
gainka wuxuu la mid yahay 1 plus rf r input ayuu la mid yahay. sidaa darteed v output waxay la mid tahay a v input. haddii invertingkii aad soo daawatid keliya minus ay meeshaas ahayd. marka qeexitaanka haddaan ku laabano non inverting amplifier wuxuu sheegayaa hal u dhawaa circuit loo design gareeyey inuu ku siiyo positive voltage gain, macnaha wuxuu ku siinayaa positive voltage gain. halkan gainkan waxaa la yidhahdaa positive gain, macnaha positive voltage gain kii adeeta negative voltage gain uu ku siinayay, halkan positive voltage gain uu ku siinaya. marka waa circuit loo dhisay inuu ku siiyo voltage gain. tusaale haddaan soo qaadano 2 oo lagu dhiftay 2 hadday kula mid tahay a meesha waxaa soo baxaysa positive 4, laakiin hadday minus 4 kula mid tahay minus a hadday kula mid tahay minus 4 aa soo baxaysa sax. marka haddii marka ay rf ay la mid tahay, macnaha rf hadday 0 tahay oo short circuit ay tahay meeshan oo 0 tahay, maxaa dhici lahay? waxaa dhici lahay tanna tiradii rabta ha ahaato 0 oo loo qeybshay 4 iska dheba, waxaa soo bixi lahayd 0 soo bixi lahayd. meeshan waxay noqon lahayd marka 0 hadday noqotona meesha waxaa kasoo bixi lahay 1 aa kasoo bixi lahay bis. equationkan 1 uu noqon lahay. 1kaas marka waxaa loo yaqaanaa voltage follower ama unit amplifier aa loo yaqaanaa. haddii marka lagu weydiiyo voltage follower ama unity follower haddii lagu weydiiyo labadan eray meel ay kugu imaadaan waxaad dhahaysaa unity ama voltage follower waxaa waaye markii inverting amplifier ama non inverting amplifier inverting ma ahan non inverting amplifier markii feedback resistancegiisu uu yahay 0 waa dhahaysaa. markii macnaha feedback resistancegiisa uu yahay 0 waxaa loo yaqaanaa non inverting amplifier kaas voltage follower aa loo yaqaanaa. intaasu waa conceptiga non inverting amplifier iyo shaqada uu qabto. marka shaqada uu qabto waxaa waaye inuu ku siiyo positive voltage gain inuu ku siiyo. example ayaan ka shaqeynaynaa kadibna waad ku fahmi doontaa. examplekan waxaa lagu siiyey 10 kilo ohm oo feedback resistance ah iyo 4 kilo ohm oo input resistance ah iyo pin 3 oo lagu apply gareeyey 4 volt iyo pin 2 oo sidoo kale lagu apply gareeyey 6 volt. circuitka marka wuxuu u shaqeynayaa inverting amplifier iyo non inverting amplifier. haddaadan non inverting amplifier horay usoo daawana halkan aan soo dhigaynaha ka daawo. waxaan marka hore ku hormaraynaa inverting amplifier. inverting amplifier qaacidadii aan soo saaranay waxay ahayd voltage input oo kula mid ahay minus a v in ana waxay kula mid ahayd rf oo loo qeybshay r in. sidaa darteed sidaas la mid ahayd. sidaa darteed r waxaan haysanaa 10 oo loo qeybshay 4 oo kula mid ah 2.5 ay kula mid tahay gainki. ku dhifo marka waxaad dhahaysaa v output oo inverting ah. meeshan waxaa ku qortaa marka hore sidays iskaga kaa dhex wareerin inverting. kadib waxaad dhahaysaa minus 2.5 oo lagu dhiftay 6 waa qaybtaas 6 waxay kula mid tahay minus 15 volt.
non-inverting waxay kula mid ahayd v output sidoo kale oo minus tala na waxay kula mid ahayd 1 plus rf ri v in intaanay kula mid ahayd 1 plus rf ri v in kuma dhibsanayn halkan waa v intaan ka reeb intaanay kula mid ahayd kadib waxaa dhahaysaa r hadda waxaa soo heshay rf r oo loo qaybshay rf macnaha rf oo loo qaybshay ri hadda 2.5 soo hesha marka waxay kula mid noqonaysaa 1 plus 2.5 oo kula mid ah 3.5 v output waxay kula mid tahay marka v output 1 dhatan tana 2 v output 2 waxay kula mid tahay 3.5 oo lagu dhiftay 4 macnaha marka inverting ka shaqaynaysid tan waa iska indhatiraysaa non inverting markaa ka shaqaynaysidna tanaa iska indhatiraysaa waxaa ku dhifanaysaa 4 kadib waxay kula mid noqonaysaa 14 ay kula mid tahay adiga marka waxaa lagaa rabaa ugu dambeyn circuitkan muxuu u shaqaynayaa qaab noocee u shaqaynayaa labadooda kala jaraysaa v outputka hal xabo leeyahay soo maaha labadooda ayaa kala jaraysaa waxaa dhahaysaa macnaha labadooda ayaa isku geynaysaa v output 1 plus v output 2 ayay la mid tahay total v output kadib waxaa ka soo baxaysa minus 15 plus 14 oo noola mid ah minus 1 marka ugu dambeyn wuxuu u shaqaynayaa circuitkan wuxuu u shaqaynayaa qaab ah inverting input ayuu u shaqaynaya laakiin labadooda waa ku shaqaysaa hadda kan aan baranayno waa kana invertingna waa kana labadooda marka kala isku dartidna waxaa ka soo baxaysa inuu u shaqaynayo qaab inverting ah marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa haddii aad labadooda kala fahamtid aad bay kugu fududaanaysaa inaad kuwa dambe fahamtid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu